kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka nolosha xogogaalka aan xiiqin waa mar kale iyo muuqaal kale maanta waxaan idin hayaa muuqaal xiiso leh isla markaana ku saabsan saddexda dal ee burburi doona inta aan la gaadhin 2030ka waa saadaal dheer oo ay qortay jariirada The Express taasoo sheegtay liiska 10ka dal ee burburi doona inta aan la gaadhin 2030ka balse qormadeena waxaan ku soo qaadan doonaa saddexda dal ee aadka loo sii saadaaliyay inay burburi doonaan inta aan la gaadhin 2030ka jariirada The Express ayaa sanadkan qortay saadaasha saddexda dal ee laga cabsi qabo inay burburaan inta aan la gaadhin 2030ka. Ingiriiska ama dalka UK waa dal siyaasad ahaan fog oo muddo badan dunida ka talin jiray waxaana wuxuu ku haystaa dhul badan oo aan dalkiisa ku jirin oo xataa aan qaaradda Yurub ku oolin. gobolka Scotland kuma guuleysan isku daygiisii xornimo ee 2014 balse wali ma joojin dadaalka uu ugu jiro inuu Ingiriiska ka hoos baxo oo dal madax bannaan noqdo. sidoo kale Ireland oo iyadana Ingiriisku xukuma ma rabto inay sii ahaato meel London ka amar qaadata ee waxay dhaqdhaqaaq xooggan ugu jirtaa sidii ay mar uga hoos bixi lahayd UK. labadan gobol oo madax bannaan helaa waxay sababi doonaan in dawladda Ingiriisku burburto oo ay noqoto gobol yar oo ku yaala qaaradda Yurub. jasiiradda Maldives ama dalka Maldives oo loo yaqaan xeebtii raaxada iyo dalxiiska ama jasiiradda jannada ayaa laga cabsi qabaa inay gaadhi weydo sanadka 2030ka. joogga badda ee kor u sii kacaya iyo fatahaado waaweyn ayaa laga baqayaa inay jasiiraddan dhammaanteedba badda ku daraan ama quusto oo dib loo arki waayo. tani waxay sababtay in madaxweynaha dalkaasi bilaabo qorshe lagaga hortagayo inaanay quusin ama biyaha baddu qaadin jasiiraddan quruxda badani. dalka Belgiumka muwaadiniinta Belgiumku waxay u qaybsan yihiin laba qowmiyadood oo aad u kala fog isir ahaan kuwaas oo lagu kala magacaabo Flanders iyo Wallonia. sida ay jariiradu qortayna waxa laga cabsi qabaa in qowmiyadahaasi kala baxaan isla markaana dalweynaha Belgiumku u qaybsamo laba dal oo kala madax bannaan. haddii aad muuqaalkan ka heshay daawada ha moogaan inaad sii share garayso isla markaana muuqaalkan like siiso si aan ugu dhiirano oo aan ugu soo sameeyno muuqaalo badan oo kan oo kala ah oo xiiso badan wad mahadsantihiin.